السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن سلام أصحابتي إذا دونكم ميل وبعد كجوكتان كسو دوادا channel كان منا صوما ولا شينا منا وموقال عصبي روتين كيني إن شاء الله ما توحن إذن لو ذاقيا مالمهن سمينا ديب كلينينج حبك أن أسميه إن شاء الله إذن كانوا حرجينيا إنا كفا إذا ستان وجدولة ديني أتكو صولابتان وحوقه ريان كبلابي ومسخشة ساوجيدين ميل والبانسي بوفينيا inta aan howlaha kale aan ku mashquulsan ayaan waxaan rabaa musqusha in aan la sii dhigo daawadani alaabta walba aan isticmaalayan waxaa waaye pink stuff ayaan isticmaalaa marka kan musqusha ayaa loogu talagalay darbiyadii barkada iyo meesha waji dhaqa tuunjiga dhulka meel walba soo buufiyay marka fadhiga ayaan ku soo laabtay waa lagu casheeyay inta badan aniga routiinkeygii waxa waaya cashada iyo wixii ka dambeysay ayuu bilaabanayaa maalmaha aan joogo waxaan sameeyaa subax ayaan hoosh iska qafiifiyaa maalmaha aan subaxii aanan joogin waxa waaye fiidkii ayaan sameystaa marka waa kana waxa ugu horeeyay waxa waaye miiska ayaan iska soo tirtiray waa lagu casheeyay waan soo hagaajinayaa markaan soo hagaajiyo kadibna insha Allah dhulkii waxaas ayaan soo huufareynayaa meel walba oo miisasna waan soo tirtirayaa insha Allah marka jadwalkayga maalmaha kale wuxuu ugu duwan yahay waxa waaye wiigiibo waxaan sameeyaa laba maalin ayaan waxaan sameeyaa deep cleaning awal wiigiiba 3 biri ayaan sameynayay laakiin waxaan dareemay caruurta maadaama iskuulaadkii loo furay iskuulaadkii ay ku laabteen waxa ay joogaanba ay yihiin saacado aad iyo aad u yar guriga sidaas darteed guriga dhaqsimo wasaqoobayo sidaas darteed waxaan sameeyay wiigiibo meesha aan 3 biri deep cleaning aan ka sameynayay hadda waxaan ka sameeyaa wiigiiba 2 maalin ayaan deep cleaning ka sameeyaa maalmaha kale tan maho speed cleaning ayaan sameeyaa marka deep cleaning waxay ugu duwan tahay waxa waaye dhulkii ayaan tirtirayaa roogii dhan ayaan qaadaa meel walba ayaan gacanta marinayaa insha Allah maalmaha speed cleaning sameeyeen waxa waaye waa iska huufareynayaa guriga alaabihii meel qalad la dhigo kale ayaan dib aan ugu celinayaa yani guri iska nidaamsan oo ii sheeg la hagaajiyay inuu u ekaado ayaan rabaa sidaas darteed wax tirtirid kuma jirto laakiin maalmaha deep cleaning aan sameynayo waxa waaye dhulka dhan inaan soo fiiqo soo xaaqo soo hagaajiyo soo tirtiro qalajiyo ayaa laga rabaa marka hada alaabtii wixii dhan miiska waan iska soo hagaajiyay waan soo tirtiray miiska TV-ga dhaladaan ku xijiyay waan soo wixeeyay roogii dhan ayaan qaaday saa u jeedin fadhiga huufar ayaan la dhacaa huufarka aad iyo aad ayaan u jeclahay xaaqinka ma jecli aniga xaaqin ma isticmaalo waxaan dareemayaa guriga inaysan si fiican loo xaaqin marka xaaqinka oo kale aan isticmaalayo busta iyo boorka iyo wasaq yar oo kale sida ciid oo kale ayaa laga yaabaa inuu xaaqinka oo kale uusan qaadaynin laakiin huufarka markii meel walba aan la mariyo maasha Allah sheeg nadiif ay tahay macal fadhigi macal jikadii wixii dhan guriga dhan waa soo tirtiray wixii roog waa dhulkan ka qaaday waa sii warwaray balkoonka ayaan ku sii waray haddana waxa waay tirtirid ayaa ii bilaabanayso fadhiga ayaan ka soo bilaabayaa tirtirita waxaan ku xijinayaa dhaxda qolalkan ku xijinayaa jikada ayaan rabaa insha Allah inaan ugu dib marsiiyo marka laba qoray ayaa ii yaala midna waxaad arki doontiin hadhow anoo musqusha ku dhaqayo midna musqusha ayaa iska leh midna waxa waaye guriyaha ayaan u isticmaalaa geedkani aan dhulka aan ku tirtirayo marka sidaas ayaan jadwal aan u kala sameeyay kulli hadaa rabtid jadwal inaad sameysatid adiga iyo gurigaaga inta qof ku nool iyo hadba sida loo joogo ayay ku xiran tahay samaradii oo kale waa aragteen guriga ayaa la joogaa moor ayuu u baahan yahay guriga in la hagaajiyo oo deep cleaning aan waxaan sameyn jiray wiigiibo 3 biri laakiin hadda iskuule maadaama la kala aadayo subaxii guriga sida looga baxo waxaa laga yaabaa galabkii in lagu soo laabto 8 saac 9 saac in lagu soo laabto sidaas darteed waxa waa gurigii wasaq badan ma gaarayso oo huufar kaliya ayaa ku filan sidaas darteed ayaa wiigiiba 2 maalin hadda aan uga dhigay deep cleaning hadda dhexdii ayaan iska soo tirtiray qolka caruurta ayaan imaaday meel walba waxaan rabaa maanta inaan saas aan u tirtiro wiigiiba 2 mar marka aad sameysid maalmihii kale tan ii sheeg howshaadii ay ku sii dheer tahay oo sariirihii firaashaysid gurigii leerinaysid wixii wasaqa meesha ka sii qaadaysid sii huufareynaysid tay guriga gacan baa ku haysaa sidaas darteed waxa wasaqadan way ka yaraanaysaa howshana qafiif ayay ku noqonaysaa maalmaha deep cleaning aan sameeyo sida maanta oo kale waxaa laga yaabaa saacad adiga inay igu qaadato oo saacad aysan ka badneen maalmaha speed cleaning aan sameynaya waa adiga iska nus saac 40 daqiiqo alaabtoo kale ayay ku xiran tahay
laakiin maasha allah jirka markuu la qabsado maaragtay waa caadi, culeys ma dareemeysid, guriga wuu ku nidaamsan yahay, ma ku daaleysid ilaan shaqadii waad la soo qabsatay. marka hadda alxamdu ashukru jadwalka kuley saas ayaan u kala qaybiyey oo sidaas ayaan faa'iido badan aan ka dareemayay oo in muddo aan soo waday oo dhowr sano ayaan ku noolaay. marka hadda alaabtii ayaan dib u soo celinayaa, kuraastii ayaan iska soo toosiyey, roogii ayaan soo firaashay markay ii qalaleen. waxa kaliya marka hadda ii dhiman waxaa waaye musqushi inaan aado oo musqushii aan soo dhaqo. hadaayo waad arkayseen shaqada intaanan bilaabin musqushi ayaan ku hormaray oo aan soo buubuufiyey. marka kii dhulkii aan ku tirtirayay camal ayaa ii yaala, laakiin musqusha kaliya ayaan u isticmaalaa. musqusha maadaama mutuleel ay tahay dee derbiga meel walbana ma la gaarayi, waxaa kaloo hoosna waxaa barkad ayaa ku taalo, sidaas darteed geedkan ayaan isticmaalaa. aad iyo aadna runtii wuu ii cajibiyey. insha allah mutuleel musqushiina haddii ay tahay habkaad u nadiifisaan waa jeclaan lahaa inaan ogaado. habka igu fudud anigaan ku hagaajin karo waxaa waayey inaan geedkani aan u isticmaalo. musqusha xataa hadhow dhulka markaan dhaqaayo sidoo kale ayadii ayaan isticmaalayaa. meel walba waan la gaaraa anigoonan ka cabsanayn yacni inaan jabo oo meel inaan ku istaago aan hubo yacni nadiif in ay ii noqonayso. sidaas darteed ushana way dheer tahay, mutuleelka dhan ayaan kusoo racsiinaa, ayaan kusoo hagaajinayaa. wasaqda dhan markaan soo hagaajiyo gacantii aan soo mariyo biyo kulul ayaan ku furayaa. wixii dufan wixii ii sheeg wasaq waxaas oo dhan si usoo baxdo. hadda marka darbiyadii iyo waxaan soo dhaqayaa barkada maxaa waji dhaqa. hadaayo wixii dhan waan buubuufiyey, waan soo qalajiyey. markaan soo qalajiyey alaabtiisii ayaa hadda dib ugu soo celinayaa. iisheeg musqushii waan iska soo hagaajiyey, dhulkii sidoo kaleeto waan soo tirtiray, waji dhaqii waan soo hagaajiyey. waxaa kaloo iisheeg tuunjigii alxamdu ashukru shaqadii waan iska soo dhameeyey. alaabteydii marka sharaxadeedii carafti yareed ayaa halkaani soo dhiganayaa si musqusha ii sheeg hadhow markii loo soo galo caraf ay u noqoto. marka waa kan asxaabey, sidaan ayaa kuley aniga maalmaha aan sameynayo deep cleaninka u samaystaa. jikadii waan soo hagaajiyey, qolalkii waan soo hagaajiyey, fadhigii sidoo kaleeto maanta waxay igu qaadatay adi saacad iyo 10 daqiiqo ayay igu qaadatay. musqusha waatana markasaani kusoo baxday ilaa waxaan idin tusinayaa mutuleelkii oo darbigii aan soo dhaqay. waa arki kartaan u maleynayaa waa nadiif maasha allah, lagama sheekeyn karo. marka kulli ani saas ayaan u isticmaalaa, ushaasi dheer ayaan isticmaalaa si aan u nadiifiyo. fadhigana waa kana waan soo carfiyey, waan soo hagaajiyey. waxa kaliya ii dhiman waxaa waaye inaan unsi aan ku shido. laakiin kow horta aniga ayaa soo qabaysanaya, markaan soo qabaysto kadib ayaa insha allah unsiga ku shidi doonaa. waxaana rajeynaya asxaabay inaad ka hesheen muuqaalkani oo waxaad ka faa'iideen. hanaga hilmaamina share iyo like iyo comment, intaba waa xaggiina. until next time waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.